السلام عليكم سيدان لو ودا سocno waxaan dalka China maanta gilgilay cudur loo yaqaano corona oo ah virus kuna faafa dhanka hawada viruskan oo saameeyay ilaa 1200 qof waa virus la yaab leh dhaqaatiirta China iyo dhaqaatiirtu adduunka soo saari lahayn dawo lagu daaweeyo cudurkan hadaba waxa la yaab leh in cudurkan 14 maalmood ugu horeeya aadan dareemin waxa loo yaqaano symptoms ama calaamadaha uu leeyahay cudurkan balila daawada muuqaalkan. More than 80 people have died since the outbreak started, and there are estimates that nearly 6,000 people have been infected. Around half of those we believe have recovered. Waxaa soo badanaya bacdinta laga qabo fayraska ku faafaya China ee corona iyadoo ay hay'adda caafimaadka adduunka ku dhawaaqday maalinimada Khamiista wixii ka dambeeyay lagu soo rogi doono xaalad degdeg ah oo adduunka oo dhan ah iyadoo sidoo kalena carabka ku adkaysay daqiiqad inay uga socon doonto arrinkan waxayna dawladda China ku soo rogtay xiritaanka magaalooyinka qaar kaasoo kor u dhaafaya 25 milyan oo qof waxaana sidoo kale laga cabsi qabaa faafitaanka cudurkan oo kor u dhaafaya ilaa 1200 oo xaaladood oo kor laga socdo waxaa sidoo kale jira ilaa 800 oo xaaladood kale waxa cudurkan sidoo kale lagu sheegay Korea, Canada iyo wadamo kale oo badan. Hadaba waa maxay fayraskan dilaaga ah? Waa mid ka mid ah fayrasyada corona oo isugu jira fayrasyo fara badan. Waxayna fayrasyadan sababaan xanuuno aan dhibaato ku hayn aadamaha oo isugu jira hindisada. Laakiin waxay il u tahay cudurro kale oo dhib badan oo ay ka mid yihiin SARS-ka. Waxaana la aaminsan yahay in fayraskan oo aan aad ka loo aqoon inuu soo bilaabmay dhamaadkii sanadkii hore isagoo ay sheegayaan khubaradu inuu ka soo bilowday xayawaan gaar ahaan suuqa xayawaanada ee magaalada Johan. Fayraskan corona waxa uu yahay fayraskii SARS sanadii 2003 iyo 2004 waxa uu geystay 744 xaaladood dhimasho ah oo 339 xaaladood ka mid tahay ku dhacday wadanka China oo kaliya 299 kalena Hong Kong tahay waxa uu geystay 8096 waxyeelo dhanka dhaxlidan waxaad moodaa inay isku dhow yihiin 80% labadan fayrus waa fayraska corona iyo SARS sida uu yiri Professor Arno Fontanier معادك باستو كويالا باريس كان من مسؤولين عذرات عصب لبنان فيروس وحي داوع درن وجيستان سمبضة يحب نفسك آدمها سيدي أيو كفا فيها فيروس كان وحي سو صارت وكالة عافمات كدولة تشاينا هي سيدو كله هيئة عافمات كدونك WHO إنه حيوان ومتبيي سيدو كله دتك كقاضي كران وبها عريركا أو مستحيمكا وحانا أنت سيدر إن مركي وهرسي الهلاي فيروس كان لقى هلاي مجال ووهان دتك شقين يسوق حولها كان شقية kalluunka waxaana xusid mudan inaan dhayalsan karin fayraskan maadaama uu si fudud ugu gudbayo dadka waxaana kamid ah calaamadihiisa inuu leeyahay xumad aad u daran iyo sidoo kale neefta oo kugu adkaata qufac daran waxa uu sababa burburinta sanbabada waxayna professorada Natalie McDermott ee jaamacadda King's College ee London sheegtay inuu ku faafo qofka oo hindisa ama anduftiisu gaarto qofka kale taasoo ay ku talinayaan dhaqaatiirtu in laga fogaado goobaha ciriiriga badan sidoo kalena hawada aad u badnaato afka iyo sankana aad xirato gacmahana si fiican u dhaqato sidoo kalena aad ka fogaato dadka qaba cudurkan kee ayaa daran cudurkan cusub ee corona ama SARS-kii hore waxay sheegaan khubarada caafimaadka oo kamid yahay Dr. Zong oo qayb libaaxa ka qaatay dabargoyntii SARS sanadii 2003 inuu ka saameyn yahay SARS-ka gaar ahaan saameyntiisa xagga sanbabada waxaana intaas ku daray inuu si uga yara fudud yahay laakiin saameyntiisa leeyahay inkastoo aan wali la helin dawo u qalanta haddaba maxay ka tiri hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO waxay beesha caalamku soo saartay maalintii Khamiista wixii ka dambeeyay in xaalad degdeg ah lagu soo rogi doono maadaama fayraskan uu yahay fayrus aad u daran oo saameyntiisa leh waxaana xusid mudan in mid ka mid ah madaxda WHO Mr. Tedros uu yiri in 16 ka mid ah xubnaha arrimaha degdega ah ay isku waafaqi la yihiin in la soo saaro xaalad ka dhan ah China isagoo ka dhigay sidoo kale in ay ku noqonayso caqabad xagga ganacsiga iyo arrimo kale oo siyaasadeed oo fara badan hay'adda caafimaadka adduunkuna inta badan go'aamadan xayuubinta ama inay xidho dhaqdhaqaaqa dawladda ama shacabka wadanka China ma geysan karo sababtoo ah markii ugu dambeysay waxay ahayd 2009kii oo ay ku geysatay xanuunkii loo yaqaanay qufac doofaarka kaasoo saameyn badan yeeshay faafitaankiisuna aad u badnaa sidoo kale Ebola oo ka dilaacay 2014kii wixii ka dambeeyay qaaradda Afrika xanuunadaas fara badan iyo xaaladahaas aad ka markii yimaadaan ayaa waxa lagu dhawaaqa xaaladaas degdega ah laakiin takhaatiir fara badan oo caalamka ayaa waxay soo jeediyeen in laga dhigo arrintan arrin waxa weeyaan xaalad degdeg ee adduunka oo dhan ah maadaama fayraskan si fudud ku faafayo ولنا أن دولة سلحين
laakiin WHO way ku adkaysatay in ilaa khamiista wixii ka dambeeyay ay ku soo rogto xaalad degdeg ah wadankaasi China. Barnaamijkeena maanta insha Allah intaas uu naga eegyahay daawadayaasheena qiimaha iyo qaayaha mudan waxaan filayaa inaad ka faa'iidaysteen barnaamijkeeni tan iyo intaan ku kulmi doono barnaamijkeena midka xiga insha Allah waxaan idinkaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.